maqalka muusigada macaan ee dhagiina soo gaaraysa waa heestii loogu talagalay goolhayaha qaranka Soomaaliyeed Saciid Aweys Cali Saciid Yamani heestan waxa hal abuuray Abwaan Umar Hanad laxankana waxa sameeyay abwaanka weyn ee caanka ah Xanifi Xaaji Barsanji muusigadana waa al-fanaan Abuukar Xaaji Cabduqaadir Abuukar Yare jiibtuna waa kooxda Iftiin codka macaanna waxa soo gaarsiinaya al-fanaan Umar Hanad farsamada garlaantana waa engineer Suldaan Sabir hadaba heestii loogu talagalay Saciid Aweys Cali Saciid Yamani oo maanta taariikhdu tahay 2020 loo bedelay magaciisa Saciid Soomaali waxaan leenahay maqal wanaagsan insha Allah saban badan midkay Soomaalida sugayso saban badan midkay Soomaalida sugayso sibiisa ciyaarta iyo saxnaanta wanaagsan dadka uga sareysa goolha ee Saciid hambaliyaan ku sinaa goolha ee Saciid hambaliyaan ku sinaa saban badan midkay Soomaalida sugayso saban badan midkay Soomaalida sugayso sibiisa ciyaarta iyo saxnaanta wanaagsan dadka uga sareysa goolha ee Saciid hambaliyaan ku sinaa goolha ee Saciid hambaliyaan ku sinaa Saciidow haddaad saakay noqotay midka Afrika ugu sareeyo Soomaaliya kugu faraxday Soomaaliya kugu faraxday goolha ee Saciid hambaliyaan ku sinaa goolha ee Saciid hambaliyaan ku sinaa Saciidow haddaad saakay noqotay midka Afrika ugu sareeyo Soomaaliya kugu faraxday Soomaaliya kugu faraxday goolha ee Saciid hambaliyaan ku sinaa goolha ee Saciid hambaliyaan ku sinaa sidan bari ahayn iyo sumcaday lahayd Soomaaliya dib u soo celisay dadka saaran dunida soo jeedisay Soomaaliya tustay siduu yahay wanaagood goolha ee Saciid hambaliyaan ku sinaa goolha ee Saciid hambaliyaan ku sinaa sidan bari ahayn iyo
سعيدو همبليان 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 كوسنا